25 xubnood oo ka tirsan saraakiisha booliiska dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa tababar soconayay muddo 7 loogu soo gabagabeeyay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Tababarkan oo ay bixinaysay waaxda booliiska ee AMISOM ayaa lagu baranayay cashiro la xiriira baaritaanada dambiyada, maareynta iyo la dagaalanka argagixisada, xog ururinta iyo adeegsiga siraha, badigoobka iyo soo qabashada tuhmanayaasha wixii la mid ah. Taliyaha booliiska gobolka Bay Amiin Maxamed Cismaan ayaa sheegay in tababarkan gaarka uu yahay mid sare lagu qaadayo tayada booliiska dowlad goboleedka Koonfur Galbeed si ay uga hortagaan maareeyaan isla markaana la dagaalamaan argagixisada. mid ka mid ah saraakiisha booliiska AMISOM ayaa sheegay in tababarkan uu kor u qaadayo xirfadaha lagu horumarinayo xiriirka ka dhaxeeya booliiska iyo bulshada, waxaana uu raaciyay in saraakiishu ay haatan leeyihiin faham buuxo oo ku aadan la dagaalanka argagixisada iyo baarista dambiyada tuhmanayaasha. kadib markii dhawaan hoggaanka ahlusunna wal jamaaca ay ku eedeeyeen ciidanka AMISOM in ay ka qayb qaateen dagaalkii ciidanka dawladda iyo kuwa galmudug ay kula galeen guriceel, waxaa ka jawaabay howlgalka midowga Afrika ee AMISOM. war-saxaafadeed ka soo baxay AMISOM ayaa waxaa lagu sheegay inay ka walaacsan eedeyntan ah in ciidamadoodu ay ka qayb qaateen dagaalkii guriceel ayna taageereen ciidanka dawladda isla markaana eedeymahaasi ay yihiin kuwa been abuur oo la doonayay in khilaaf laga dhex abuuro AMISOM iyo bulshada Soomaaliyeed. sidoo kale AMISOM ayaa sheegtay in ujeedka howlgalladooda uu yahay in ay hoos u dhigaan awoodda al-shabaab kana caawiyaan ciidanka dawladda dagaalka ay kula jiraan soo afjaridda argagixisada, nabad ku soo dabaalidda iyo bixinta taageerada amni si ay awood ugu yeeshaan. dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya howlahoodu shaqo waxay ka mid yihiin doorashooyinka iyo ammaanka doorashada waddanka. qoraal ka soo baxay AMISOM oo aad u dheeraa ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in AMISOM oo fulinayso waajibaadkii loo igmaday ay xoojinayso ciidamadeeda ku sugan Dhuusamareeb si ay u sugaan ammaanka doorashada, balse aysan jirin wax taageero ah oo ay siiyeen dowladda Soomaaliya heer qaran iyo mid gobol si ay ula dagaalamaan ahlusunna wal jamaaca. sidoo kalena sinaba aynan uga qayb qaadan iska horimaadyadii hubeysnaa ee dhiigga badan ku daatay ee ku dhexmaray dowladda iyo ahlusunna wal jamaaca ee magaalada Guriceel ama magaalo kale. wasiir dowlaha wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug ayaa sheegay in wasaarad ahaan ay diyaariyeen 2 kooxood oo suga amniga goobihii lagu dagaalamay ee Guriceel, sidoo kalena baaritaan ku sameeya. wasiir dowlaha warbaahinta kula hadlay Guriceel ayaa sheegay in guud ahaan amniga Guriceel la xaqiijiyay isla markaana xilligan wixii ka dambeeya qof aan ciidan ahayn aysan hub ku dhex qaadan karin gudaha magaaladaasi. waxa uu hadalkiisa intaa ku daray in ay soo saari doonaan xeer guud ahaan Galmudug hubka dhigis looga bilaabayo, waxaana ugu baaqay ciidamada dowladda iyo kuwa Galmudug in ay xeriyahooda ku ekaadaan. amarkan soo baxay wasaaradda amniga Galmudug ayaa ku soo beegmay saacado kadib markii xoogagga ahlusunna ay isaga baxeen Guriceel kadib dagaalo 4 maalin oo xiriir ka socday halkaasi.